waxaa garoonka kubadda cagta Stadium Ayuub ee magaalada Baydhabo ka furmay koob loogu magacdaray koobka nabadda Koonfur Galbeed Soomaaliya kaas oo ay ku tartamayaan 30 kooxood oo ka dhisan magaalada Baydhabo waxaana munaasabada furitaankan tartanka ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay ka mid yihiin kusimaha wasiirka isboortiga ahna wasiirka caafimaadka Isaaq Ali Subak iyo wasiirka amaanka dowlad goboleedka Abdifataax Ibrahim Geesay iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka ee degmada Baydhabo labada kooxood ee tartankan koobka lagu furayay ayaa waxay kala ahaayeen kooxda Holwadaag iyo kooxda Isha munaasabada furitaankan ciyaarahan ayaa waxa ka hadlay ugu horeyn gudoomiyaha isboortiga gobolka Baay Abdulqaadir Shariif Xerow iyo wasiirka amniga iyo xogayaha arrimaha bulshada iyo dhammaan bulshooyinka ka qayb galay runtii sportsku may waxa dhalinyaradu ma baahanyiin intii oo la barbaariyo la wacyigeliyo waqti loo dhumiyo soo marne mowqifka naqada mowqif oo walbarasho iyo caafimaad leh oo bulshaduna iska fahmayso naqada wadanayaa wasiir meeshii la socodsiiyay baahada garoonka aysan argo hoytaan runtii ciyaar la qabad shireediye meelan baahanyaha meelil kadeelo fadin naftirshay intii oo la taageero bulsho badan laga helo garoonka oo naftirshay hadda qaybo badan ku dunsan darbiyaal shay geek hadii lacag weel fadni meel ka soo hano garasa dartiya lacag weel wayni laakiin insha Allah bariyay meel buu ka sheegno darbigeen intii daboolna meelina lacag dhigna soo kamla aan helna soo walaay oo nahnay zaa'ida oo kabsan maamulka dhowr jeer aan sheegnay degmada gobol may waa hadal leh hadii la hayo wana loo qaban dibshow may ku codsaday maadaama mas'uuliyiintu oo Koonfur Galbeed isaga intii kaalintiin ka qaadatan ni caawidan ni kabtan maamulka kusimaha wasiirka isboortiga ahna wasiirka caafimaadka Isaaq Ali Subak iyo wasiirka amaanka Abdifataax Ibrahim Geesay ayaa munaasabadaasi ka hadlay bahad isboortiga heer gobol iyo heer degmo runtii may fadhiyaan intaan mahadnaga bahad isboortiga gobolka iyo degmo heer gobolka si oo suuri geliyay antii oo geedka Baydhabo ku furmay koobka nabadda iyo isdhexgalka bulshada oo isku kaaladeen bahad isboortiga gobolka Baay iyo degmada iyo hay'adda Interbees may runtii iyadoo ka faraxsanaa dhalinyaradii oo maalayaan dirbiyan fadhi jirtay wal qaldan iyo wal kala ka mashquul jireen geedka sports mashquulkeeyay oo macnaha may baa waqti soo qaaliga kibiyaha ay isdhexgalka bulshada may kale macnaha may baa marlamaad mahadnaga faday gudoomiyaha sports gobolka Baay Abdulqaadir Shariif Xerow oo muddo badan oo lagu gacanta ka hay ka mashquulsanay maan ku daalna iyo daroof ma jirto iyo nabadgelyo ma jirto iyo Baydhabo tii dagaal ku dareer amiin imaal aan ku dhiifana si sportiga macnaha may baa oo gobolka Baay gaar ahaan degmada Baydhabo ka dhimada fadlan may kale macnaha ka dhiirigeliyay Abdulqaadir Shariif Xerow intii soo caajisnaa in isarna macnaha may baa dhaqaale doorada tabar doorada jirtay walaamu meel ku fadhiyo intii darnaa howlusatuwada si la majbaar إن شاء الله تعالى دولة كونفور قلب الصومالي ميكي لقرب سلطة هيلو هيلو هيكي لقرب سلطة إن شاء الله تعالى بيبقى نيفا جانا مالنت كوبك أو يبقى كوح على الكوتك جوليس أنتنا هو يبقى كوح هذا نقول قالنتانا كبيرنا بالله يتوفر في جيك ملها إذا فرح سجنا ما إنك فرح سجنا استحقلك بالشدة ما يبقى قيب أو اللي بيني كوك على سير نبتجليدا دالينيرة سبورتس كان أهمية وين يعني لين قيب وين أو نبتجليدا دالينيرة كمشغول لا يدل يجاد يدباتو ما يكون خير بدنا إن جيشنا دستك جميع ستة في ما دهان يود دم هان يدين هان بيأم فيله ما يفضل إن ما هاد نقدر سبورتس كمدة لبعض سنة قدركم معمولان الدولة دان إن دام لان هاي قلنا تكايزي فولنتري oo Abdulqaadir Shariif Xerow arday weeye meel raay master Abdul Galay arday kumid ay rigi sports galanta kaaj kale oo badan oo aan geekinta ka argay gurmadi Ali Shambo sida mutadawacnimada ee hoola arday han wadeen ma jeelaan ku mahadnaga ma fadayaan oo fursad u faa'iideysto insaas oo kala arday aan ku mahadnagna cidii oo galan ku jeysatay oo koreeyay hay'adda Interbees oo arrintan muddo 20 iyo ما اللي راي صدّن مالاتي سجال مالمود صدّن كوخد نك أو السيو هايتن إنكم ما قدروا كل إنكم ما قدري كوب كنا بدأ كوفر قلب الصوماليا
aasaaska mayla raay ee koonfur galbeed Soomaaliya meel ka dhisi iyo xarunta meel gaarka ee bahatay ilaa baydhabo ilaa caalamka dhan wada arago hayo geeka in nabadgelyo tamay Libanon ka dheelo hayo oo lisla fiirso farxad weyn ardaynin ata kelmadii munaasabadan ka eedanayti wasiirka caafimaadka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waxaana kusimaha wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro mudane Isaaq Ali Subugi ka dhawaaye ciyaarahan oo ahaa kuwa kooxdiiba hal mar kaliya ay ciyaarto isla markaana lagu furay labada kooxood Halwadaag iyo Isha oo ciyaartoodu ahayd mid xiiso badan oo min hal gool isdaaf waayay ayaa waxay ugu dambeyntii ku kala baxeen rigoorayaal oo ay ku soo gabagabowday 4-3 oo ay ku badisay kooxda Isha hase yeeshee ciyaarahan ayaa la sheegay in ay socon doonaan muddo 29 maalmood ah ayadoona labada kooxood kaalimaha koowaad iyo labaad gala la abaalmarin doono Abshir Maxamed Nuur Mandela Royal TV Baydhabo